أو سلامي وعبد الله إعلانو وصاحبك برنامجك أو ما أنت حكوا وضع عمرك حدي على ذا قب جناسي أما سكول أما أونلاين كلها أما عادي كلها أما ماشي دون كلها أديك وحواي كلي أونلاين كمان برنيد هدي قب جناسي عادي لهاي أونلاين كمان برنيد بوس بات كلها هاي مركا إن وحن كوها يا قاب كمارتا إن دد أصحاب تمارتا أما دد كوسو حرن قط هذا شغل كحرن سدي أي مارتا أيغو gudahooda jooga foomka u buuxin lahayn ama foom u diyaarsan lahayd oo online ah oo aad qofka markuu oo foomkii buuxiyo jawaab degdeg ah express siinaya marka ila soo haddii aad TikTok ila soo tad muuqaalka maarta la garay oo share garay follow-dana maarta iska saaradi dadkii aan follow gareena follow laga leeyahay okay aan ku socdo waxaan rabaa inaan ku socdo Google Form waxa waaye waa application ahaan oo soo deegi kartaa Gmail-kana waa ka samaysan kartaa Google-ka caadigan waa ka samaysan kartaa qofkii rabo qaybta search wuxuu ku qori karaa qoraalkani Google Form ah ama haddii aad doonto hadda aan ku qorayo oo qaabkan u qorayo ka fiirso oo qaabkan u qorayo hadda tan bal la soco Google Forms okay intaas kaliya qoraysa farta qoraalka bluega mid uu saariyaa waa kadib okay aan leedahay qaab kale oo ka yara fududna waa jirtaa markii Gmail-kaagu browser-ku uu kacsan yahay markii oo browser-ka uu Gmail-ka uu ku kacsan yahay waxa sameynaysaa oo kaliya halkaas geeska halkaas oo ciwaanka uu Gmail-ka uu saaran yahay agteeda ay taabanaysaa oo waa kan halkan yaalo qora u yara baxaysa form waa kan halkan yaalo Google Forms waxyaabahan Google ku saabsan dhamaantood waxa waaye minahaal ayaan hadli doonaa hadii la yiraahdo videoga hadii uu dheeraado waa taqaana halkan soo gelinayo waa ka xumahay videoga ka horeeyay YouTube-ka soo geliyay laakiin wuxuu iga noqday copyright oo waan garan waayay sababta uu ku noqday marka waxaan rabaa marka inaan halkan ku diyaarino Google Form inaha barnaamij markaas process ah oo markaas ama shaqo ha aado ama qaab CV ahaado ama qaab imtixaan ha aado kadib marka waxa jirto page-ka kale ta Facebook dadka iska leh waan faacaya dadka YouTube-ka iska leh YouTuberada ama YouTube iska leh waan faacaya qofkii hadda TikTok iska leh laftigiisa waxa waaye xogaayarku waa yaraan faacaya waayo wuxuu sameeyay markii uu rabo inuu wax diyaariyo ama soo diyaariyo macluumaad uu rabo inuu diyaariyo oo dad uu rabo foomkaas inay u buuxiyaan uu rabo wuxuu soo saari karaa linkiga qaybta profile-kiisa hoostiisa ayuu soo saari karaa okay marka waxaan bilaabaynaa marka samayntiisa iyo qaabka loo diyaariyo okay marka kan si automatic ku jawaaba qofka si automatic ugu jawaaba oo waa marka hore diyaarinaysa foomka kaliya diyaari kadibna maarta si automatic ah ayuu qofka u jawaabaya okay aan guda galno marka waa soo fahanna oo malaynaa sayla tahay barnaamijka application-ka ama programka aan sharaxayno waa hal yiraahdaa Google Forms ama Google Form diyaarinta foomka qofka markii oo macluumaadkii aad maarta adiga aad diyaariso macluumaadka marka qaabka u diyaarinaysa hadda bilaabayna marka qofka qaabka uu isticmaalayo iyo qaabka maarta ii sheeg adiga oo qofkii soo gala maarta ama foomkan buuxinaya qaabkii uu jawaabaha u bixinayay wax dhanba iyo qaabka adiga markaas foomka aad diyaarsatay oo jawaabta u bixinayo intaas waxa waa ku wadaagi doonaa insha Allah halka marka waxa ku qoraysaa waxay ahayd process-ka markaas adiga aad doonaysid in markaas qofka uu foomka ka buuxiyo waxaan rabaa marka inaan iskuul aan maarta aan ka diyaariyo aan u diyaariyo form iskuulkaas oo micnaha bixinaya maado markaasi ah maado 3 bilood ama 2 bilood oo kale soconayso koorso ah koorsadaas oo kale taan rabaa marka inaan form ka diyaariyo dadka diiwaan gelinaya markaasi ay halkan igala soo xiriiraan si markaasi jawaabta si degdeg u bixiyaan iyo qaabkii foomkaas u buuxin lahayn aan u diyaarino okay waxaan rabaa marka iskuul magaciisa halkan iska qoro ayadoo qaab tusaale ah marka waxaan rabaa inaan ku qoro SYL okay SYL halkan ku qoray SYL primary and secondary okay primary and secondary school
okay inta waxaan ku qorayaa marka maxay ahayd maadada markaasi uu bixinayo markaasi oo macnaha iskuulka markaasi tusaale hadda SYL primary secondary school hadda iskaga qoran meeshan waxaan ognahay inuu kan marka uu yahay primary secondary school laakiin markii formkan oo kaleeto ama maarta ardayga markaas isdiiwaan gelinayo oo rabo markaas dugsiga sare ama dugsiga dhexe kadib sharaxaad halkan ku qorayaa maxay ahayd qaabka qofka markaas description uu buuxinayo formka waxaan halkan ku qorayaa marka isdiiwaan gelintu waa diyaar fadlan foomka buuxi fadlan soo buuxi foomka okay kadib marka waxaan rabaa inaan halkan ku qoro kadib waxaan rabaa inaan halkan su'aalihi aan ku diyaariyo balaaside markaleeto balaaside kadib markaas haddana markaleeto waxay tiraahdaa balaas kaleeto kadib markale balaas kale idheh marka waxaan rabaa inaan halkan ku diyaariyo su-aashii ugu horeyso ah inaan halkan ku diyaariyo taasoo ah magacaaga geli magaca ugu horeeya ama name first name okay first name ama magaca ugu horeeya first name okay waxaan ka dhigayaa marka su-aasha halkan markaan ku qoro su-aasha waxaan halkan taabanaya waxaan ka dhigayaa shorten ayaan leeyahay meesha waa ka saareynaa halkan waxaan ku bedeleysaa age-ka ama da-dada age-ka jidta ku qoreysaa meeshan kadib marka waa soo boodeysaa halkan ad imaaneysaa macnaha halkan waxaa ka dhigaysaa su-aal gaaban shorten answer jawaab gaaban inuu qofka jawaab gaaban oo bixiyo tusaale magaciisa la weydiiyey inuusan dhadheereenin magaca koowaad la weydiiyey inuusan dhadheereen magaca labaad la weydiiyey inuusan dhadheereen marka shorten answer jawaab xoran waxaa ku dhigaysaa shorten answer macnaha waa jawaab gaaban okay halkaana imaaneysaa meeshaan waxaan ka dhigaynaa marka telephone numberka markaas qofka lagala soo xiriiri karo waxaa la leeyahay mobile phone ama phone number okay phone number okay balaaside waxaan halkan ku darayaa marka magaalada joogo age-kiisa magaalada joogo iyo telephone numberkiisa waxaan halkan kusoo diyaarisay waxaa waaye phone number age-kiisa magaciisa saddexan da-diisa qofka telephone numberka kadib marka xaafadu degan yahay hadaa rabto halkan waxaa ka dhigi kartaa xaafadda aad ka degan tahay ama magaalada degmada aad degan tahay degmadii degan tahay maarata sheeg adiga degmada halkan ka dhigi kartaa kadib maarata qofkii markaasi sheeg adiga goob ganacsi raba macnaha ganacsi u rabo ayaa ka dhiganaya degme iyo waxsaasa waayo qofku wuxuu rabaa inuu halkiisaas ugu geeyo badeecadu qofka ka dalbaday marka qofka maarata iska diiwaan gelinaya ama barnaamijkaaga maarata isticmaalay qofka foomkiisa markaasaan ugu buuxinayso waa in qof markaas badeeca ka dalbad badeecadiisa aad ugu geynayso fadhigiisa marka waxaa waaye degmada iyo xaafadu degan yahay waxaasoo dhan waxaa waaye foomka ku qoreysaa waayo waxaad rabtaa inaad badeecadu kaa dalbad u geyso marka intani waa tusaale iyo misaal waaye maarata maadaama qofka oo misaal wax ku fahmo si markaasi foomkan aad u diyaarsato ku dhow marka qofkii oo dhowdi markaasi foomkaaga la xiriira ama soo arka in markaasi uu aad xogtii uu kusoo gudbiyo macluumaadkiisa isagaa horta si jawaab degdeg uu ku bixinaa oo qofkii isdiiwaan geliya isagaa jawaab degdeg ka helaya marka adiga un keliya waxaa waaye inaad diyaarsato mawduucani kadibna jawaabtii aad diyaariso kadib marka qofkii markaasi mawduucani iska diiwaan geliya kadib jawaab degdeg uu helaa isla markiina ay gmailka fariina kugu soo dhacayso oo qofkii isdiiwaan geliya fariin xogtiisa kugu soo dhacayso
marka qaabka telefoon loogu xiranayo xitaa waa iin sheegi doonaa insha allahu. Marka sharaxaadda waa kusii dheeraaday karaal noqo sharaxaadda waa kusii dheeraaday marka warka hadduu bataan leerkiisa warkiisa buu gilowsiyaa marka waxaan rabaa inaan maartaade gabagabadii aan sii gaarno. marka halkan waxaa ku qoraysaa marka telefoon numberkiisa qofku waa tiri waqtiga kadib maarta timeka oo markaas qofka diyaar yahay markaas ama la heli karo ayaad ku qoraysaa. kadib marka su'aalaha dhammaasta waxaad ka dhigaysaa shortin adiga shortin ka dhigaysaa bas alaashan macnaha timeka markaan ku daraayo foomkan keliya maahan iskuul inuu diyaarsan yahay iskuul keliya maaha waayo goob ganacsi marka adiga joogto oo ganacsi aad leedahay qofka waqtiga badeecada aad u gelin leed ama waqtiga qofka kaasoo dalbada la heli karo marka waa inaad halkaas kaaga diyaar ahaataa. marka optionkani wuxuu leeyahay shortin maku ahan optionkan shortin maku ahan uu leeyahay su-aasha aragto macnaha inay option leedahay ama option ay kusoo qorayso option kusoo qorayo waxa waaye qofka maarta foomkan iska buuxiyey marka aan foomkiisa buuxiyey wuxuu ku sheegayaa inuu markaas in adiga su-aashaadi boosas badan ay ka banaan yihiin marka su-aashaadi haddii boosas ka banaadaanna waxa waaye marka ma qurux badna. marka kan marka halkaana aan ku ekeynaynaa marka waa kusii dheeraanay timekii la heli karo waxaasoo dhan taa ku ekeynaynaa. marka siyaasaan macluumaadka markaasaan usoo diyaariso marka waxaad samaynaysaa keliya haddii aad rabto linkigiisa inaad qaado adigoo goobta ganacsi joogo qofkii markaas macaamiil kula soo xiriiro whatsapp waa ugu diri kartaa haddii aad rabto pageka waa saari kartaa marka qaab walba u isticmaali kartaa. okay marka foomkii waa kan asaan ugu yaalaa seen yeelaa marka ku qaadaa marka linkigiisa ku qaadana. okay waxaad samaynaysaa halkaani falaartiyarta taalo ayaad taabanaysaa kadib halkaa markaa imaato waxaad samaynaysaa meeshaan calaamadda yarta taalo taabanaysaa marka halkaas taabato linkiga waa kan halkan yeelaa soo saan u dheer waa qaadan kartaa haddaa rabtana waa soo gaabi kartaa oo linki gaabana ka dhigi kartaa. marka short link halkaas link ka saaraysaa waa kana form yar oo ku gaaban oo noqonaa link yar linkii koobiya soo leedahay marka qaab badan aad u isticmaali kartaa marka adigoo online markaas aan gurigaaga joogo ama goobtaada ganacsi joogo. marka waxaan sameynayaa hadda whatsappka rabaa inaan ku diro whatsapp markaan ku dirayo waxaan sameynayaa halkan linkigii basti ku leeyahay waa kan linkigii okay send aan dhahay. okay marka linkii aan xaguu geenayaa marka qofkaani xaguu geenayaa qofka marka uu diro wuxuu sameynayaa saan u taabanaya toos wuxuu geenayaa marka foomkii ayuu toos u geenayaa. okay foomka marka toos u geeyo muuqaalkan ka soo sameyn doonaa kan muuqaalkan aan ku dheeraaday waa kan marka qofka foomka saan u buuxinayaa wuxuu ku leeyahay marka waa aragtaa halkan geli gmail ku bilaabo magaca geli kadib magaca labaad geli magaca saddexaad geli kadib magaalada geli degmada geli telephone numberka timeka aad hoosh rabto inaad gashid ama waxbarashada rabto inaad gashid kadib halkan waxaa gelinaysaa sida aad nagu maqashay kadib sumista qofka dhahaya marka isla markii adiga waxa ku soo dhacaysa fariin oo markaas ka imaatay qofka markaas xogtaada iska diiwaan geliyay marka adoo goobta joogo ganacsi ama iskuulkaaga joogo xafiiskiisa ayaad waxaad samayn kartaa in qofka uu maartaade uu form isdiiwaan geliyo aad waxaa ugu soo diri kartaa whatsappka formka isku diiwaan gelin lahay whatsappka ugu diri kartaa facebooka ugu diri kartaa ama facebook pageka saari kartaa. marka salaaman hadee muuqaalka hala la gareeyo anigu maartaade waxa waaye waa la shaqeeyaa marka waxa waaye ila shaqeeya idinkan anigu waxa waaye lacag midin ka rabay mishaar midin ka rabay wax midin ka rabay waxa waaye like-taas share-taasi iyo subscribe-ta ku heshii karnaa aan ku wada socon karnaa oo diyaaradeena ku socon kartaa idinkantiina ku socon kartaa oo shidaalkeygana ku socon karaa ma fahanteen. marka muuqaalka iska laagareeya imaamadda iskaga tuura iska share gareeya qofkii dood ka qaba ama maartaade oo wax ka fahmi waayna qaybta commentiga ku sheekaysano.